ما شاء الله magaalada waa wada roob waa roobaysan tahay magaalada ma garateen qaybta adduunka socda roobe caabi adaa ii salaamaya daaqada ka duuwaya ma fahanteen ma sha Allah wuxuu ilaahay nasiib waay iska fiir wuxuu qool bilaay amar cadde xeebteedan u xiisay roobkeedan u xiisay iska fiir barwaaqo bilaaway ma sha Allah xaafada jooga qolka ka soo baxay ma fahanteen asxaabta waan idin salaamay winka qadale maanta wax laga duubo my house banaanka adin wada banaanka roobka adduunka ganjaalkooda maayaan soo degin dabaq labaada ka soo degin waasaa socota roobka adduunka tubooyinka ma arkaysa xaafadaan yaa bay leedahay tuuganimadooda waxay sameeyeen nalkii bannaankii waxay ka baxsadeen ii sheeg nalka weynaay waxana waxay ii geliyeen oo yiriisoo shucaace diriskii kama dheer nalkayga wallaahi fiir nalkaas xunka ay ii geliyeen nal waxaa iigu jiray oo weyn oo qaali ah arbaladkaana dadka qaar idhaa dirisa nooga dhiganaa la yiraahdaa lagu duceystaaye waa yaabne halkaas bannaanka guriga waayo mudadin roobka adduunkaa socdo maasha Allah waa idinku soo noqonayaa bannaankaa joogaa roobka ma socdo mala bannaanka رصير راح لك بنانك واقف عمل براقة كبلاو ما شاء الله أصحابي waxaa idin leeyahay dadkaa soo aruuriyey waxaa dharkii markii oo meeshaan meesha banaanka dharka xarig aan ku warwaro asxaabi waa kana meesha dharka lagu dhaqo hool weyn waa meeshaan banaanka ah ma fahanteen ma sha Allah waxaa idin leeyahay diyaanka oo kale waaye iskiita halkaas iska degantaa ma fahanteen meesha dharka lagu dhaqaa banaanka weyn barxadaana leenahay ilaahay wax leh halkaasan roobkana waa u jeediyey inuu caad wada saaraya magaalada muqdisho maasha Allah raxmada ilaahay haysanaa waa inaa ilaahay ku mahadinaa maasha Allah hadda ana wajigayga xataa waa qoyan yahay filter iyo wax la marsaday haba yaraatee ma jirto no filter waaye noo ii sheeg turkays iyo computerka ma gelinayo wallahi saanad qodooy adigoo qoyan anigoo idin qaraaxaysanayo roobka jeclaysta inaan maanta la wadaago raxmada ilaahay ma sha Allah nasoo dhaha waxaan leeyahay Soomaaliya waa wili abtigiisii xaaladda dhagdhag laga dhigo hal isku calool furnaado yaa qalbiga hal nadiifiyo qulubta ummadda ilaahay Allah soo wada geliyo walaadnimada iyo kalgaceylka iyo diris wanaagga iyo asxaabnimadii ceeshka la wada cuna saaxiibtinimadii ehelnimadii xigaalnimadii wax walba Soomaalida isku ahayd waxaan rajaynayaa insha Allah in xalad dhalin naga noqon doono walaal la jecel Soomaaliya la wada yahay qorax yar oo been had soo baxda ma sha Allah caadka kaas ay kor saaran tahay daruurtu waa sideeda u taalaa markaas xaawi waxa la yahay walaaltinimada iyo dirisnimada iyo islaamnimada yaa laga tegin dhahayaa ii sheeg ehelnimada yaa laga tegin saaxiibtinimada yaa laga tegin asxaabnimada oo wax walba isku nahay wili abtigiis waa Soomaali walaale hal isku sabro hal isku dul qaato xaaladana hal la dejiyo Soomaaliy ariga qabiil lama jiro meeshaan ii sheegay dawladna lama jiro mucaaradna lama jiro siyaasadda isdiidanna shaqo ma ku lihi aniga laakiin aniga waxaan xaq u leeyahay in aan dhaho dadkaygo
aan is ceshano aan wax iskula harno ehelnimadii walaalnimadii saaxiibtinimadii ceeshnimadii diris wanaagii bersamaadkii ehelkii wiili abtigiis ahaa dadkii xidadkii xigaalaha ahaa waxaan kala xishoono qof maalintiisa waaye aan kala xishoono hala kala xishoodo Soomaaliya qabiilka iska daaya qabiilka maana wili qabyaalada qalbiga idinkaga jirto oo idin xumaysay oo idin duleysatay oo idin dilatay oo idin bahdilashay oo idin wada kalkaalisay gooni idinka wada dhigtay waxaa jiro ma aha qabiilka qabyaalada hala aasa qabyaalada waxaa idin leeyahay aad idin jeclaa Soomaali weyn hadda qalad ii aragtay aniga haqa u leeyahay dadkayga dhaxdhaxaadiyo aniga haqa u leeyahay inaad dadkayga dhinac aan raacin dhinacna aan ka soo jeesto ka soo horjeesto inaan waaniyo waana abuurisa ka warisa leeriyay Soomaaliya haqa Allah idin tusaa idin leeyahay aad idin jeclahay wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed walaalahay tihiin ay laafi Soomaali weyn de halkaana waa halkeenii magaalada Muqdisho waa hooyada Soomaaliyeed caloosha Soomaaliya marka waxaa idin leeyahay laga maxay dhinacaada qabso nin walbo dhinaca ka gaartid haaq dhankaygaan haynaya dhankaaga hay waay ya marka abtinimadii aan iloobin iyo ehelnimadii iyo wax walba aan isku ahaan intaas iga waana waaye hadii la diidin qiyaarkiin inkii sarta fuulo madaan cali suldaan cali waaye ya marka waxaa idin leeyahay kaleeto hadii la diidana ana idinka idin taalaa idin leeyahay been ma sheegayaan qabiil miihi qabyaaladiistan miihi umada Soomaaliyeed ma ii maxay tiri ay fiirsato dadkayga wax ku ahay aniga warkayga waxa waaye wanaaga la fiirsho yaa la fiirinin adduunyada la tagaayo oo maalinta quraal oo maalinta maanta waa adduunyo birina waa aakhiradaada ku dheelin dad dhahaya TikTok iyo meelahaas ka arkay inta TikTok wuxuu iska noqday weel aad ama dabal aad xaarka ma dhamaadee wixii xun TikTok ku arkay nin dhahay diinta ka baxay waxaas amal ceeb waaye nin dhahay naagteeda furay waxaas amal waa ceeb gabar dhahayso heblaaya noqonaya saan iyo waxaas aan soo qabanaya afkeyga ceeb waaye niman yahow nimankan waa weyn oo siyaasadda ku jiro shacabka kana indhaha ma ka daawano ninka fiican oo Ilaahay soo doortana aan daba joogno kii Ilaahay ridana de walaalkeen waa aabaheen Soomaaliyeed ma salaama aan dhahno kan joogana waa waxa weeye Soomaali xogta iyo sokeeya wadanahe de aan soo dhaweyno ma fahanteen magaalada Muqdisho waxa waa lama kala laho dawladana lama kala laho qalbigiin qeyr u sheega Soomaali weynay qabqabta iyo qarracda iska daayada leeyahay waa iga waano waa iga talo ninkii habartay aroos waxa la yiri adeerkay waaye marka ina bariis siyaabo jirin baane qof bariis isiiso amba wax isiiso aaba jirin baane qof bilaadina ugu fadhiyo bariis iyo wax inuu isiiyo amba qof aan wax uga baahanahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala intuu joogan adoonka Ilaahay ma qadiyaal yiri marka waxa idin leeyahay wanaaga fiiriya anta fiiri bir fiiri walaalka fiiri asxaabta fiiri cunuga habartu tahay fiiri cunuga aftigu tahay fiiri kii kula dhasha fiiri taaqabtid fiiri Soomaalinimadana fiiri danta dalka iyo diintana fiiri oo hal meel ha u jeernee walaalo yaalo raali ahaada hadalkooda ku badiyay marka waxaa idin leeyahay sidaa ayo nabadiina wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ummadana xaqa Allah tuso sidaa ayo nabadiina waa idinka tagayaa mar kale isku noqdan booxiisa leh like share comment subscribe waa inaad igu caawisaan waa inaad siisaan maadaama aan ahay gabadhiina Soomaaliyeed marka ay hooyadii Soomaaliyeed habarta de waxa idin leeyahay khayr Allahna waafajiyo wax kale oo dhahayna ma leh ya kor waayeen waa wada indho marka waxa idin leeyahay dadkayga isjecel Ilaahay tu Soomaaliyeed meel bay u kala socdaan waana isku weel waana isku guri waana isku dhaqan waana isku diin waana isku af waana walaal marka ma aqaan waxaan dhahaa aniga waa yaabana meeshan ku yaaba fadhiyaa Soomaaliya ciroolo iyo caruurba mid ka wada cabaadayo qaylinayo ku qaylinayo qabyaaladii quranka war iska dhaafa idin war iska dhaafa waxaas ceeb waaye de qof walba Ilaahay guusha u qoray iyo Ilaahay wuxuu siiyay alxamdulillah shukr ma sha Allah walaalka birada maanta weysid baantii ku soo galaysa
beri haddaa way haysatidna maanta ay kaa dhamaan kartaa marka walaal dhamaama ay dheeftay isku keendirin ee raali ahaa Soomaaliya xishooda kala xishooda oo kala ka xishooda ummadda walaalaha aawada tihiin oo meel kasta dhal wadaaga leeyahay aniga waxaan isku ahayn ma jirto Soomaali waa hal guri ee naga daay waxa wadaan